بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو حسن إيوه channelka kala socotaan waa Xasan Cadde official meel walba joogtaan soo dhawaada saaxiibkiina waxaan idin leeyahay asxaabteeda ugu xiran channelka meel walba joogtaan caalamka ku soo dhawaada channelkayga Xasan Cadde official channel waa Xasan Cadde ninaad wax la idin soo dhigo arkiina ma arto idinka qarsoon laakiin caawa wuxuu ku sugan yahay saaxiibkiina xaafadan joogaa caawa waxaan leeyahay magaalada dhan bandow lockdown habeen iyo maalin waxaa waaye xaafada xayiraad badan iska saaran oo dareemi kartaan isliina dhibaato badan baa ka jirto laakiin waxaan leeyahay insha Allah ilaahay waa ka qaadi doonaa isliidan iyo coronavirus dhibaatada jirto maanta caalamka ilaahay naga najiyo waa saaxiibkiina idin leh maxaa idin leeyahay asxaabteeda aan jeclahay ila socda inta taqaano subscribe ha isaarto inta ay aqoonin ha soo dhawaato ha ila grayso comment waxaan rabaa barnaamijyaal badan oo muuqaala iyo waliba riwaayooyin cajiib ah iyo waliba waxa jeceshaan xiisad inay xiisan gelina inaad soo duubo marka asxaabteeda soo dhawaada hadartaan waxaan ku tala juraa rag badan oo asxaab aan nahay oo ma artay message ay soo qoreen ama fariin qoraaleed nin aan saaxiib nahay ayaa wuxuu joogay qaxooti ila socdo qisadan waa qisa dhab ah ka dhacday caasimada wadanka Kenya gaar ahaan Nairobi gaar ahaan xaafada Islii iyo waliba nin qaxooti ku ah Kenya hadaad ila socon jirtay ila soco hadaad ila socon jirin ila soco si aad ugu boogtid arimahan waxa message ii soo qoray ama fariin qoraaleed wiil aan aad saaxiib u nahay oo aad isna aqoon jirnay oo waliba yaraanteena soo barbaarnay ma sha Allah wiilku waxa la dhahaa Xuseen Cabdullaahi wuxuu ku dhashay Soomaaliya wuxuu ku soo barbaaray Soomaaliya laakiin isagoo nin dhalinyaro ah markaas qaangaar ayuu imaaday xarada qaxootiga ee Xagardheere markuu imaaday in badan uu joogay halka waalidiintiisii waxbarashadiisii uu ka sii waday waalidiintiisina uu caawin jiray kadib ninkii qis ayaa qabsatay Facebook page uu lahaa Facebookina in ka badan 5,000 oo friend oo Facebook uu lahaa marka ninka saaxiibkayga qiso dhab ayaa qabsatay maxaa kula talinaysaa ku soo qor commentiga ninka saaxiibkayga qisada qabsatay waxay tahay 4 sano ayay maama la ahaan jirtay friend Facebook weligii markuu sawir soo dhigo laaga commentiga caadi ma artay ula socon jirtay maamada waa maama cajiib ah oo ma artay oo ku xiran page-kiisa iyo friends-kiisa ku xiran marka maamadii inta badan ku xirnaan jirtay maalin dhaweedii ama sanadkii hore last year ay u soo bandhigtay arimo guur ah wiilkii oo Facebook ay ka soo wacday maqal iyo muuqaal maamada waxay joogtaa magaalada Muqdisho marka maamadii oo magaalada Muqdisho joogto oo maqal iyo muuqaal wiilkii kula soo xiriirtay waxay ku dhaday gabadhayda aniga aan dhalay ayaa waxay joogtaa wadanka Ingiriiska gaar ahaan caasimada London ayay joogtaa gabadhaydu waa guurdoon gabadhayda nin fiican ayay rabtaa adigana waxaan ku arkaa inaa wiil fiican tahay in badan aan fareen kula ahay nin dadaalayo oo waxa tahay mar walba wanaag iyo qoraalada aad soo dhigto iyo sawirada aad soo dhigto waa nin aadaab leh oo ma artay si wanaagsan aan ma artay halkaan aan kaga jeclaystay marka waxaan kula jeclaystay gabadhayda aniga aan dhalay waad i maqlaysaan waalidiintaan jeclahay marka maamadii wiilkii waxay ku qancisay nin mustaqbal doon ah oo dhalinyaro ah oo xero qaxooti joogo wuxuu ku qancay inuu ma artay maamadii gabadheedii ma artay uu la xiriiro maamadii waxay ku dhaday gabadheeda ma sha Allah caasha la dhahaa waxay joogtaa London ayadaan lambarkeeda ku siinaa la xiriir bal ka dhamayso marka wiilkii waayahay wuu farxay marka nin dhalinyaro qaxooti joogo oo rafaadsan oo qaxooti ku ah dhibaatada qaxootiga u leeyaan maanta ninkii jooga ayaa garan karo marka wiilkii lambarkii London la sii gabar halka joogtay uu la xiriiray inay ayada tahay maamada gabadheeda taa Allahu a'lam wuu la xiriiray in badan Facebook WhatsApp-ka email-ga inta uu kala sheekaysanay markii intii ay dhaxmartay sheekadii iyo sawiryaal isdhaafsasho iyo waliba live Facebook iyo email-ga WhatsApp-ka in la arko ay dhaxmartay ayaa ma artay markii dambe gabadhii wiilka waxay ku qancisay inuu waalidiinteeda hooyadeeda iyo aabaheeda oo joogaan Soomaaliya gaar ahaan caasimada magaalada Muqdisho
in uu la hadlo waalidka uu ka doonto oo wax walba la dhameeyo asigana Nairobi ayada ay imaan doonto oo Nairobi ay imaan doonto. Nairobi markay imaadana ay ku aqal galaan guri uu usii diyaariyo. balse waa yahay hooyadii aabihii oo aan lees arkin qadka taleefanka ama maqal iyo muuqaal lagu wada xiriiriyay aalada Facebooka iyo intaba. maamadii ayaa dib loo wacay. maamadii hooyo gabadhu waa dhameysanay waxaan rabnaa inaan aqal galno. aabaheedu waa joogaa. aabaheeda baro iyo walaalaheeda sidii baa aabihii iyo walaalihii loogu dhiibay Cabdullaahi. dhibaato badan ayaa haysato. marka aabihii iyo walaalihii ayaa halkaas lagu baray. maamadii waa maamo fiicanbo. marka markii ehelkii qaraabadii uu bartay kadib maxaa dhacay? waxay dhacay ila socode ha ka jeesanin laagtani ugu qabo. waxaa dhacay kadib odayaal loo yeeray labada dhinac wiilkana ay diyaarsadeen si live ah. odayaal loo yeeray iyo weliba ma aragtay markhaatiyaal. marka odayaashii maamadii ay u yeerteen iyo aabihii xagga ma aan naqaano qaabkii ula dhaqmeen. marka wiilkii maamadii waxay ku heshiiyeen iyo gabadhii London joogtay in uu u diro $7,000 reerka magaalada Muqdisho ku nool. kadibna meherkii loo meheriyo. kadibna guri uu ka diyaariyay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii. maxaa dhacay? waa qaab siyaasadeysan oo tuugnimo ah. weli ma aan arag. ilaahay ku naxariisto masaakiin qaxooti ka imaaday oo lagu dhacayo Nairobi oo weliba hadana qad bay telephone iyo weliba live dhibaatada musiibada soo wajahday saaxiibkayga. markaas ayuu $7,000 gabadhii uusan arkin iyo hooyadii oo aqoon dhab uusan u lahayn ayaa gabadhii loo meheriyay. hooyadii iyo aabihii ayuu la xiriiray. kadib Nairobi xaafadda Islii gaar ahaan xaafadda Section 3 ayuu ka qabsaday qol iyo fadhi ayuu dhigtay alaab. maasha Allah waa loo aruuriyay lacagta inta badan. lacag ayaa loo aruuriyay ehel iyo qaraabo iyo tol iyo dhalinyaro intaba. lacagtii guri ayuu ku hagaajistay. maxaa dhacay? haddaba haddaad aqal geliyd naag aad arkin aqal ha u dhigin. naag aad arkin ha guursanin. waa iga talo. naag aad arkin ha u faanin. dadkina ha ugu faanin. saaxiibkayga wax walba markuu sameeyo isku dabariday. gabadhii waxay ku dhahday waxaan imaan doonaa habeenka Jimcaha 7 saac iyo bar habeenimo aan airportka ka soo baxaya insha Allah. rasiidkayga 6 saac inaan soo degayo ugu qoran insha Allah gurigayga. haye sidii loo sugay maxaa soo dhacay? saaxiibkaaga lambarkii London waa laga dansaday. kii Soomaaliya waa laga dansaday. lacagtiina sidii ku baxday. meher aan loo joogin waa lagu meheriyay. waxaan ku leeyahay dhibaato ayaa jirto. qaxooti joogo aqoon daro iyo dhibaato ma artay. marka asxaabtayda waxaan idin leeyahay waxaan idin hayaa qisooyin badan oo halkan ku jiraan. ila socda meel walba aad joogtaan. sidaas iyo nabadgelyo. tuugnimadii ayaa ma artay saaxiibkayga lagu dhacay. maamadii ku dhacday. gabadheeda ku dhacay. telefoonadii wixii laga dansaday. marka waxaan idin leeyahay kulanka xigo waqtigaaga ka faa'iideyso.